kulan wanaagsan daawade kuna soo dhawow warbixintan xiisaha leh oo aynu ku soo qaadanayno xeeladaha indhasarcaadiyada ugu cajiibsan ee uu sameeyo indhasarcaadiyaha weyn ee lagu magacaabo Mario Lopez. Mario Lopez waa actor ama jilaa, waana indhasarcaadiye. Wuxuu u dhashay Mareykanka. Waa 45 jir caan ka ah masraxyada lagu soo bandhigo hibooyinka gaarka ah, gaar ahaan Mareykanka, Britain iyo Canada. waa nin si weyn loo jecel yahay indhasarcaadiyadiisa sababtoo ah waxa uu sameeyaa kuwa fudud laakiin ay dadku ku wareeraan xeeladaha uu adeegsaday dartood. waxaan isku dayi doonaa in aynu idin soo bandhigno xeeladaha dhowr indhasarcaad oo uu sameeyay indhasarcaadiyahankani lagu magacaabo Mario Lopez. intaanan ku bilaabin indhasarcaadiyada iyo xeeladahooda waxaanu kaa codsanaynaa in aad like saartid warbixinta si ay noogu noqoto dhiirigelin iyo xamaasad. indhasarcaadka koowaad, laba gabal oo sigaar ah oo inta la isku kabo noqonaya hal xabo oo isku dhagan. indhasarcaadiyaha ayaa gacanta bidix ku haysta jab sigaar ah, weliba afka hore ee sigaarka, wuxuuna jeebka midig ee surwaalka kala soo baxayaa jab kale oo sigaar ah, weliba dabada dambe. wuu isku keenayaa kadibna inta ay isku dhagaan labada jab ay isku noqonayaan hal xabo oo sigaar ah oo toosan, ayadoo aysan jirin wax la mariyay ama lagu xiray si labada cad ee sigaarka ah la isugu dhajiyo. sidee ku dhacday arrintan? waa maxay xeeladda la adeegsaday? sirtuse maxay tahay? intaas oo su'aalo ah waxaan hubaa in ay maskaxdaada ka guuxayaan oo aad isweydiinaysid sidii aan aniguba isu weydiiyey qacdii koowaad ee aan indhasarcaadkani arkay. laakiin ugu dambeyn xeeladan waa tane aan kuu sharaxo. indhasarcaadiyuhu waxa uu soo qaatay hal xabo iyo jab oo sigaar ah meesha aan u haysanay in uu laba jab oo sigaar ah watay. sirta xeeladiisu waa taas oo waxay ku tiirsan tahay xabad sigaar ah iyo jab. laakiin sidee buu u sameeyey wixii aan arkaynay? gacanta bidix waxa uu ku hayaa xabad sigaar ah oo dhammaystiran laakiin uu qalloociyey. kadib mid ka mid ah sigaarkaasi uu qalloociyey waxa uu ku qarinayaa fardhexaadkiisa. qaybta kalena waa inta noo muuqata ee u eg jab sigaar ah oo la jibiyey. kadib jab sigaar ah weliba qaybta haashka ayuu jeebka kala soo baxayaa, isagoo iska dhigaya in uu isku dhajinayo ayuu jabkii sigaarka ahaa dhulka ku tuurayaa sidii in uu ka dhacayo oo kale. kadib miiska ayuu gacanta la aadayaa sida in uu jabkii soo qabanayo, laakiin ma soo qabanaye gacantiisa oo maran ayuu ka dhigayaa sida in uu jabkii sigaarka ahaa soo qabtay. wuxuuna iska dhigayaa in uu jabkii kale ku dhajinayo, laakiin waxa uu soo toosinayaa xabaddii sigaarka ahayd oo uu qalloociyey markii hore. intuu fidiyo ayay nala noqonaysaa in laba jab oo sigaar ah oo la isku kabay ay ku soo baxeen hal xabo sigaar ah oo dhammaystiran. indhasarcaadka labaad, xabad sigaar ah oo inta dhan kasta loo qabto ay qaybta dambe soo muuqanayso. Mario Lopez ayaa soo qabanaya xabad sigaar ah, kadibna isagoo isku dayaya in uu shido ayuu afka ku qabanayaa, wuxuuna la soo baxayaa jansiigar ama dabdaare. marka uu damco in uu shido xabaddii sigaarka ahayd ayaa waxa uu ka warhelayaa in qaybta dambe uu dabkii la aaday, halka qaybta horena oo ay ahayd in la shido ay afka ugu jirto. kadib wuu bedelayaa, weli waa sidii oo sigaarka qaybtiisa dambe ayaa bannaanka soo aadan. mar kale waa isla sidii, dhowr jeer ayuu ku celcelinayaa. mar kasta uu isku dayo in uu sigaarka qaybtiisa dambe uu afka geliyo, bannaanka ayay taallaa oo way soo muuqataa. yaab iyo afkala taag ayaa ka soo haray dhammaan daawadayaasha iyo guddiga garsoorkaba. bal sidee loo sameeyey xeeladda indhasarcaadkan? aan ku sharaxo. wax weyn maaha. indhasarcaadiyuhu waxa uu soo qaatay xabad sigaar ah oo labada dhinac ku leh midabka qaybta dambe ee sigaarka oo kale, laakiin dhinac kasta midabkaas laguma wareejin sida caadiga ah ee aan sigaarka ku naqaan oo kale. waxaa la sameeyey tusaale. qaybta dambe hal dhinac ayaa midab uu ka marsan yahay, qaybta kore ayaa la midabeeyey iyada oo qaybta hoosna ay caddahay. dhanka qaybta kale ee sigaarkana sidaas oo kale ayaa la sameeyey.
midabadu dhinacyada ayay ku kala yaalaan oo waa isdhaaf. tusaale, qaybta dambe haddii dhanka kore midab loo yeelay, qaybta horena dhanka hoose ayaa midab loo yeelay, sidan oo kale. indhasarcaadka saddexaad, duleel aad u yar oo shilin laga soo bixinayo. indhasarcaadyuhu waxa uu soo qabsanayaa bir yar oo nooca boolasha yaryar iyo biimanka lagu qabta ah. wuxuu dhexgelinayaa duleel bir sida guluuska u samaysan ah. kadib inta uu xoogaa ku camcamiyo birtii ayuu wuxuu duleelkii ka soo saarayaa lacag shilin ah. haddaba sidee buu Mario u sameeyey xeeladan? way sahlan tahay. Mario waxa uu gacanta calaacasheedii ku hayaa oo uu ku qarinayaa shilinka oo uu marka dambe dadka uga dhigayo in uu duleelka ka soo saarayo. shilinka uu gacanta ku qarinayo ayuu si dhaqso badan oo laakiin taxaddar leh uu ugu sii deynayaa birta yar ee uu wato. indhasarcaadka afraad, xabad sigaar ah oo ku dhuumanaysa indhasarcaadyaha gacantiisa kadibna la soo qabanayo. indhasarcaadyaha Mario Lopez ayaa xabad sigaar ah afka ku qabanaya, kadib sida qof wax hor leh soo xasuustay ayuu dadweynaha tilmaan kula hadlayaa. markaas ka bacdina inta xabadii sigaarka ahayd gacantiisii ku dhamuujiyo ayaa la weynayaa. wuxuu furayaa gacantiisii uu dhamuujiyey, kadib sida qof wax firdhiyey ayuu gacantiisii haatinayaa. waaba xabadii sigaarka ahayd oo gacantii kale ka soo baxday. qof kasta wuxuu isweydiinayaa sidee xabad sigaar ah oo ku dhuumatay gacanta bidix ay uga soo baxday gacanta midig. xeeladani way sahlan tahay. haddii aan kuu sharaxo, xabadda sigaarka ah marka uu ka dhigayo in uu gacantiisa bidix ku dhamuujiyey, sax ma aha oo kuma dhamuujin. isla xilligaasi waxa uu xabadda sigaarka ah ku qabtay fardhexaadda gacanta midig, halkaas ayuuna ku hayaa oo uu ku qarinayaa. inta uu gacantiisii firdhiyo ayuu si xeeladaysan u soo saaraya xabadda sigaarka ah, isagoo ka dhigaya in halkaas ay ku soo gashay si aan la arkaynin. waa intaasoo keliya. indhasarcaadka shanaad, xabad sigaar ah oo inta sanka la geliyo afka laga soo saarayo. indhasarcaadyaha ayaa sankiisa gelinaya xabad sigaar ah, kadibna xabadii sigaarka ahayd ayaa iyada oo qaybta dambe ay sankii kasii muuqato ay qaybta horena ka soo baxaysaa indhasarcaadyaha afkiisa. weliba si uu dadweynaha ugu xaqiijiyo, dhowr mar ayuu hore iyo gadaal u celinayaa xabadda sigaarka ah. intaasna afka iyo sanka ayay ka dhex muuxsanaysaa. yaa badana, maxabadda sigaarka ah ayaa sidaas oo dhan u dheer oo inta sanka la geliyo oo gudaha soo dhex marto haddana afka ka soo muuqan karta. haddaba xeeladani ma aha mid culus, waa xeelad fudud oo aad adigu xitaa samayn kartid. indhasarcaadyuhu waxa uu soo diyaarsaday hal xabo iyo jab oo sigaar ah. halka xabo oo dhammaystiran waxa uu si qarsoodi ah u geliyey afka, jabkuna waxa uu geliyey daloolka sanka. wuxuu sameynayaa si uu dadka u indhasarcaadiyo qaybta dambe ee sigaarka oo jab ama gabal ah oo sanka ugu jira ayuu farihiisii ku nuuxinayaa. kadibna xabadda sigaarka ah oo afka ugu jira ayuu carabkiisii ku nuuxinayaa isla hal mar. kadib arrintu waxay u ekaanaysaa xabad sigaar ah oo sanka ilaa afka isla nuuxsanaysa. ugu dambeyn, si uu uga dhigo in xabadii sigaarka ahayd intuu sanka ku riixay ay afka ka soo baxday, ayuu jabkii uu sanka ku hayay gacanta midig ku qarinayaa. xabadii sigaarka oo dhammaystiranna afka ayuu ka soo bixinayaa. waxaan filayaa inaad ka heshay warbixintan oo ay ku cajab gelisay. fadlan nala wadaag aragtidaada, qodobkii kuugu xiisaha badnaa ee aad ku daawatay warbixinta. ugu dambeyn, waanu kaaga mahad celinaynaa in aad daawatay warbixintan. insha Allah waxaanu soo bandhigi doonaa warbixino kale oo xiiso leh.